runtii waxa rabnaa aan halkan idinka sheegno waxa saaka ama maanta lagu soo boqday golaha wakiilada wasiirka warfaafinta xukuse oo runtii ay ka dambeysay kadib markii gudida ilaalinta hantida qaranku ay u yeedhay taas oo runtii uu naga soo qayb galay gudoomiyaha haatan iminka gacanta ku sahaya golaha oo baashaha ku-xigeenkii ah maadaama uu maqan yahay Jarmankii golaha wakiiladu runtii waxaan ka wada hadalnay arrin dhex martay maalmahan u dambeysay sida qaarkiinba ee la socda xagga warfaafinta oo wasiirku uu isticmaalay warfaafintii qaranka isagoo runtii aad u eedeynaya gudida ilaalinta iyo dabagalka qaranka waxaan doonayaa halkan inaan markaa ka sheegno anoo magacii gudida ku hadlaya in gudidu hawshay ay gashay ay ahayd hawshii qarankan u igmaday ee ahayd inay soo ogaato waxyaabaha ka gaadhay ama wasaaraduhu say u shaqeeyaan sideebay maxaa ka gaadhay gobollada miisaaniyadda qaranka ee wasaaradda loo igmaday ee loo sameeyey taas baanu runtii warbixinteeda ay ku salaysnayd markii runtii taas buu ka bixiyey wasiirku dareen kale waxaa ka soo baxday kulankaygii maanta in wasiirku uu gudida iyo golaha wakiilada uu ka raaligeliyey inuu gudidu ku tilmaamo inay ahayd gudi mucaarada ama gudi wadani kadu shaqaynaysa aanu u xaqiijinay inaanu ahayn gudi isku dhafan oo saddex xisba ka socota laakiin marka gudida shaqo qabanayso inay tahay gudi golahu u igmaday inay shaqadan qabato taas xaal buu ka bixiyey inuu arrinkaasi ku ahaa runtii mid ka duwan milgaha dowladnimo inuu ahaa xaal buu ka bixiyey wuxuu kale oo wasiirku xaal ka bixiyey gudoomiyaha gudida oo imika dhinacayga taagan oo uu u diray waxa la yidhaahdo message runtii aan isagana milgaha dowladnimo ahayn oo gaar ugala baxay gudda inteeda kale oo ka gaar yeelay oo gaar isaga maartay weerar gaar ku sameeyey taasna runtii uu ka garowshiyuu ka bixiyey waanu ka garaabay taana xaal buu ka bixiyey waxa kaloo meesha taala oo ugu dambaysa waxa weeye inuu wasiirku shaawir gud waxa ugu timaatay musuqmaasuq oo musuqmaasuq baa laga hadlay waxaan halkeena ka xaqiijino warbixintii gudidu ay ka soo badhitay Mansoor muu ahayn wax ku saabsan musuqmaasuq wuxuu ahaa maxaa wasaaraduhu running cost-kii ama wixii ay gaadhsiisay gobollada maxaa ka gaadhay wasaaradda warfaafintu maxay gaadhsiisay gobollada halkeebaa isduwayaashigooda ay gaadheen waxaana taas baa laga hadlay oo lagu qiimeeyey wasaaradaha waana taa runtii markaa baarlamaanka loo dambana waan la leenahay wasaaradda shaqada